بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. maanta waxaa ka hadlayaa su-aasha waxaa weeye oo ugu muhiimsan oo Soomaali haddaan nahay haysato waxaa weeye Soomaaliya yaa u maqan yaa noo maqan maxaan wadankeen maxaan rabnaa inaan wadankeen u qabsano يعني خطة بلان قرن أو دياره ما جرى سي هاد ودن كين كسعدا محا أركتان ما أركتان وحهر مرة وصو صعدا وح أمله وصو صعدا سؤالها سؤالن جواب بأقبهين إني أنا لفسدين اسكو جوابنو هدار ربنو إنان اسكو ودن كين إنو صو نقضو runtii hadii laga hadlana nimayahow wana loo tashtay sida dhahan Soomaaliduna marka qaarkood wana loo qayeeray yani meesha ka soo qaadan qofkiina loo fadhiisto anoo inkasto kuma raacsanin maraalni kamihi arinta qaylaad iyo waxaas waa xaraan ilaahay diinteen raali kama ah laakiin kelmadda yani Soomaali ahaan yani wana loo tashtay gaalo waa noo tashatay kaliya ma ahan gaalo ahaan gaalanimo ma ahan deewaanimo raga oo fakaray oo rabay inay mataqaana adduunka qabsadaan diin ahaan ha ahaato iyo nacab inuu nacab yihiin gaalnimo ahaan iyo cadownimo ay rabaan inay mataqaana adduunka qabsadaan oo xukumaan saasa waxay keentay Soomaaliya kaliya ma ahane dawladaha oo Arab iyo Islaam iyo xataa South Africa waxaa ka wada South America iyo xagga East Asia marka waa dhibka Soomaaliya haysta ma ahan wax anaga kaliya haysta waa wax adduunka dhan haysta dawladaha adduunka system baa jira lagu wado oo la dhaho shock doctrine oo aqeedatu sadma linkiga hoos baa idiga dhigay haddii rabto in aad uga sii hadashaan oo si faahfaahidiisa aragtaan waa arin dadka badanaa ka qarsoon kaatibad weyn oo mataqaana maxay tahay ikhtaradna way tahay maxay tahay wariyana way tahay buugaas baaris dheer bay gashay buugaas bay qortay arinta aad bay uga hadashay adduunka maxaa lagu wadaa system baa jira adduunka lagu wado yani macnaha for example baan ka soo wadaa waxaa jira nin oo dhakhtarkaas waxaa weeye 400 saac buu wuxuu ku soo bixiyay 400 saac arkin inay kula yartahay way badan tahay waa almost 2 sano camal wax camal buu wuxuu ku soo bixiyay inuu hal meel qalo caloosha oo sidee tahay u qalo buu xafiday marka maxaa dhacay ilaahay balood buu ku sameeyay ninkaas khamrada kama kaco 4 saac oo sarxansiye markii loo keeno amaliyo qof markuu qalaayo sidii uu la qabsaday intuu u fadhiisto oo suxulka miiska saaro oo mindida qabto buu meeshii uu qali lahaa sidee tahay u qalaya isagoo sarxansan حتى ما قلديو جاهر ميشو كجلاي ميشو قلاي واحفظ مركي لو يدي وحده أنا وحن أفر بقول صاع بان كسوجري خلاص فريهي على قبصدي يعني حتى أوتوماتيك بقص منايا معناه وحن كسر وضع جاهر مركي لو كانوا ميسك مريضكي قفكي لو كان إسلامركي هذا لا أوايق أنا هذا اسمه حن كسر وضع دون قد أوفر ستين سيستمية جرا سيستم يكون صعدنا جرا دولة بالله إيمانية وحالله وركنا مقل ويديدسا مديدسا على طول محل سمينية كوب وحكول هرو سمينية حدا أفير ستة كنتم يدي لصوت في ميقا دولة با كل جسمية عدد ولا حساب مالي even أنا لا تركين ها لين كوجا داعي سومالي داعي إنه خيرها نعم بعض الخير ولها لكن of course شنتي سابضني هذا في البالغ لها هدف كيسينو دماday 9 كبير اكيد ولا لك Soomaaliya khidad معينة loo dhisay khidadii way burburtay
waxyaalaha burburiyay insha Allah way sheegi doonaa waxyaalaha ay khutad iyo Soomaaliya ugu burburiyeen marka saan ka soo wado adduunka dhan system baa lagu wadaa systemkaas insha Allah waa ka hadli doonaa buuga sharaxi doona sometimes nuqaad muayana oo muhiima inaan garanno لأنه waxaan u sheegayaa su'aashini ma loo soo noqonayaa Soomaaliya u maqan bima anna Soomaaliya u maqan waxa ka sii muhiimsan bima anna Soomaaliya u maqan hadii aad su'aashi taalo waa inaan cadawgeena naqaana number 2 cadawgeena inaan garanayna xageen naga soo galaya xageen naga wadaya Soomaali kaliya ma ahan dawladda koowaad oo soo burburayso oo dhulka soo kacayso oo daruus waxaan ka qaadan karnaa Singapore inkasto Singapore ee tahay wadan kale iyo balad kale laakiin Singapore waxay cajiib u ahayd shan cirqi isku jira waxba isku lahayn Japanese iyo Hindi iyo Chinese iyo maxay tahay Malaysian iyo Filipinian ba isku jiray intan wuxuu ku hadlaan luqado different saasoo tahay waxay heer gaareen 60yadii min dawladaha adduunka ugu baaba'san ee maanta ka mid tahay dawladaha adduunka ugu sareeya 2013 kimse 12kii caasimadda Singapore waxay qaadatay andaf magaalada ugu nadiifsan oo ugu qurux badan adduunka bay ka mid tahay Singapore xataa aan bay tahay marka waxaan ka soo wadaa waa inaan wax la yaqaano oo la hubo oo waadixa oo lagu socon karo oo wadankeena mataqana hadaf noo gaarsiinaya inaan mataqana aakhirka yani ku socono number 2 number 2 number 3 aakhirka gool la gaarayo inaan gaarno weeyii taas way muhiimadu khilaafo badan baa jira Singapore misaalkii aan u keenay waxaan u keenay iyagoo saas isku ikhtilaafka ah بآخركي isku imaadeen oo noqdeen hal wadan oo istaageen saadin sheegay 60 sano ku noqdeen khilaal 60 sano ku noqdeen wadan oo aan la arkin wala maqlin ka waran anagii oo hal luqad ku wada hadleena oo hal diina bal hatta hal madhaba Somali majority waa Shafi'i لبسك ولا معويس عمتي ولا عنجالو حد معانك ولا حلو قهوة شاي everything وحكستا سين بان كودنا إلهي أمركيس ساسو طاي محان اسكو كنتري سبحان الله محان اسكو كنتري وليبا يعني وحان هسن دين الإسلام وحا اسكو كنترايا كهرجوغا مركز سبحان الله يعني وحلا ليابوي لكن إن شاء الله تعالى يا إنه قلنا رينين وحيالها أقومهم سن أنك هذلينو عقبات بانهست عقبات كاس إن أنكهر مرنوي عقبات كاس إن أنهفنوي صوماليا والله تشتي وحنا المبركو لغا شقيي صوماليا سيدي هو يدي ذا اللغة بابئنها مجيسي قالك بختي أو كان إثيوبيا كي قدام بي مجلس سواء مقيه بس واد كرنيسان كي قدام بي أو يعني واجي صومالي حتى مقدش وحكو برتغالية لكن وكرنيسان يصح كوميتي وصح حتى كرنيسان لينكاس وحالي يحيري والويدي صوماليا إثيوبيا قرمي قبسنيسان markii burburka dhacay fiir hadda ma ahan buuyi wuxuu yiri cunuga qurbaha ku koray cunugu dhalay markuu soo noqdo markaas waan qabsanaynaa Soomaaliya u fiirsada yaa kelmadaas subhanallah kelmadaas u fiirsada yani Soomaalida soo dhax galay oo ku koray marka waxa weeye wuxuu og yahay inuu ninka Soomaaliga ah ciizatu nafs buu leeyahay anigu Sacuudiga aan ku arkay سعودي عند دقنا سعودي عن قارك لينك صومالي عزة النفس بليه وحقفير صدي ودمضة كله نديرت إيو هندي إيو عربت قورتي كي استخدم الضم بقوعة صومالي كيالمي قصحت عن مقلة مرحة نين صومالي أو بيرك شقينا أي ميل اسمه إهد كوي كعرب كوي كلام قورتي كي استخدم Soomaaliga markuu yimid oo caayay oo damcay inuu ku kala u gumeysto kuwa ka siiyay wallahi uu dilay
عرر طبعا ولا سوق قبطي dadkii la daldalay ku jiray waa la daldalay laakiin waxaan ka wadaa يعني عزة شرف إبليهن عزة النفس ووحي آدي آد صوماليدو وجد ويهن أفريقيا حتى هي من استعمار يستأه أو إنجليزيا مستشرق بينها في عربي مستشرق وحكوا عن من أو عضانا أما وطن كلاء وحبرنا يا اللغة ديني الدين تاني وحنا هاي السنة الله دجالم ومبدأ أن شيء يا عدو جاوين تقاني نينكاس محن سميه سومالي ذو أد فهم حيري وحن كيابني أو أفير سني عرقي الصومالي أهويري صومالي نيشن كأهويري أفريكان ككلا وكدوي أفريكان ككلا حضان حقوق الشيء وقرت كيستاغنو وهنددنو آخر كرالي ونقول قنايا آخر كرالي ونقول قنايا محيط هاي حتى هدان دوشي سوكو سعنو ولي يسأليه سجوق لهما لكن صومالي وحوب الدرنسية هاي ماشو كان أفريكان كلا درنسية هاي إنا انكسر هينو صومالي وحوب الدرنسية إنو إصابة نكسر هاي سبحان الله هذا أركز هذيك الربادية الله قالك الدبضة عينيا سبحان الله بركة معناها إنه بنقصر ريو أو إسكيل يعني وحيالها اللي يابنوي معناها مركو حنقصوا ولا وأوجد داسين أو برتين أو نو فهمين أو آخر خطوين كاس نودجين صومالي ذا وحيالها سنغفورة كهر مرتي وحيكمد أهد يعني وحنكوها تجربات كنا قعد سؤال قادنا وحيكمد أهد وحبرشدة إسكولك عيالكي يعني عيالكي بإسكولة قوانين معينة لغو بلابي ولغو سعودسيي أكنتي مركز إيه نقدين ضدك لسي لها ودنك لسينا هذا هو صفة فاهين كلا وصي حد لايا حدر انتا سوية هدي عند هاي وح صحة وحق إلهي هدي عند وح قلبانا وحق شيطانك إن شاء الله فيديو كلا يدو إماريا anything هدي هذا لك عندها كهي شيء لايك سي هدات كهر زهر جيدنا dislike سي وحي رأي أموليني سيد أن يقصوا كردنا الكومنت كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.